gabadhan xilligan geedka fadhida waa maxay talow miyay soo luntay mise waa gabar gurigeeda ka soo carartay gabaray xilli dambe ayadoo la jooga maxaa cidladan ku fadhiisiyay gurigeyga ayaan ka soo cararay sababtoo ah aniga canaanta ma jecli iyo xurriyad ka qaadista soo ma ogid waalidka oo lagu caasiyo inay leedahay dhibaato weyn oo adduun iyo aakhiraba ah waalidkayga shaqaale ayay iga dhigteen anigana waxaan rabaa asxaabteedii inaan waqti la qaato anigaba caasi duqoobay baan ahay adigana caasi yar waan is anfacaynaa magacaaga ii sheeg caasi ayuu la kulmaamayaa sheekada meeshaan cidlada ah ka waran haddaan kaa wado oo meelaa seexatid ku siiyo qalanjo yar inta uguma tagi kareen okay nakaxay xaafadaana u jeedid ninka kaliya gacanta ku haayo waa aniga ceelal iyo waxaan leeyahay xoolo fara badan niyow ma anigana in yar iga siisid in badan oo aad ku dharagtid aniga ayaa ku siinaya haddaan isfahno nin lacag leh yaa fahmi weynaya lacagta ayaa hadashee laakiin weli magacaagaa iima sheegin fooxiso ayaad igu wici kartaa hadda kadib fooxiso aniga oday kaarta ayaa igu wici kartaa xaafadan ninka ugu caansan waa aniga caan dhalay inaad tahay waa lagaa dareemayaa qof yahay qolkayga ku jirtaa welina waa xijaabantaa anima igu xumeynaysaa hadda la isbaranay see kugu aaminaa niyow 10 lo iyo 10 ari ah ayaan ku siinayaa ama hadhow igu boodha waxaas ha ka baqin wax walba aan kaa ballan qaaday waan ku siinayaa